كيان ديمقراطيات حزبيغان كوبينيسانيو برواقة شرابة بحيو يسيلك سياسة ديو باريرو شاقين تايو وعقابات لاغوسي إلادو كيان ديمقراطيات حزبيغان كوبينيسانيو برواقة شرابة بحيو يسيلك سياسة ديو باريرو شاقين تايو إلادو لاغوسي وحقابا waxaan la soconnaa muddo dhow inay qabsoomayso doorashadii toddobaad ee dalka oo ah doorasho si weyn dalkoo dhan la isaga diyaarinayo aan rajaynayno inay noqoto doorasho ka duwan doorashooyinkii hore iyadoo la socotaan doorashadii lixaad ee tan ka horreysay in dhanka furfuraanta saaxada siyaasadda ay ahayd mid maaragtay aada uga fiicnayd shantii ka horreysay tanna waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid maaragtay ka sii fiicnaata tii kale qorshayaashii arrintaa lagaga dhameynayna waa la bilaabay saad la socotaan xisbiga barwaaqo waxyaalaha uu qabtay waad ka war haysaan si guud waxaan hadda anugu raba halka inaan soo bandhigo himilooyinka iyo manifestada xisbigu barwaaqo uu dal ahaan uu ku gelayo doorashada iyadoo kadibna aan ka hadli doono heer deegaan waxyaalaha noo qorshaysan dal ahaan aragtida koowaad ee xisbigu uu rabo inuu wax ka qabto waa abuuridda is-afgarad bulsho aragtida ugu horreysa ee barnaamijka ayaa taas ah is-afgarad qaran in la sameeyo oo waxyaalaha laysku maandhaafsan yahay dal ahaan wadaxaajood dhaba laga galo barnaamijka national dialogue la yidhaha ama wadaxaajood qaran in la galo iyadoo la socotaan siyaasadda dalku inay muddooyin fara badan ayna fadhiyin in wax laga midaysan yahay iyo aragtiyo laga midaysan yahay dalka uu ku dhismo qodobka ugu horreeya ee xoogga la saari doono weyne dhowaanahana waad la socoteen in kulamo arrintaa la xidhiidha oo fara badan dalka ay ka dhaceen wadaxaajoodkaa qaran ujeeddadiisu waa in fikir midaysan dalka laga yeesho maadaama colaadaha dalka ka jiray badankooda ay salka ku hayaan kala duwanaansho himilooyinka maaragtay